وعنا ونكسن Arsenal Somali fans meel kasta joogtaan iyo si kasta noo maqlaysaan ku soo dhawaada kulanka falaaqita xiisaha badan ee maanta ay wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal. kulanka Community Shield ayaa wuxuu kooxaha Arsenal iyo Liverpool ku dhexmari doonaan garoonka Wembley ee ku yaala magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. kooxda ku guuleysatay Premier League ee Liverpool xilli ciyaareedka hore ee kooxda hanatay FA Cup ee Arsenal FA Cup loo yaqaan ayaa caawa wada ciyaari doona koobka FA Community Shield. tartankan waxa la yiraahdaa Community Shield taariikhduna waxay ku beegan tahay 29 August oo maanta oo Sabti ah. ciyaartu waxay soo gali doontaa wallahi wadada idma 6 iyo barka maqribnimo ama 8 iyo 10 iyo barka sidaad u taqaan hadba. garsooraha kulankan waxa loo qaban qaabiyay inuu noqon doono Andre Marner oo England ka soo jeeda. garoonku waa Wembley. haddaba William Saliba ayaa ku soo bilaaban kara baa leeyahay safka ugu horeeya Arsenal, laakiin wiilka cusub ee Gunners Willian sidoo kale wiilka cusub ee Gunners Willian waxa uu soo fariisan doonaa kursiga geedka. Gabriel oo ka yimid Lille ayaa isna wali lagu dhawaaqin inuu ciyaari doono iyadoo ay u badan tahay inuu san kulankan caawa dheeli doonin maxaa yeelay wuxuu u baahnaan doonaa inuu maro 14 maalin oo karantiina. golhaya Berleno ayaa ka soo laabtay dhaawac jilibka ah oo uu la maqnaa kulankii diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee Arsenal 4-1 ay kaga adkaatay kooxda MK Dons toddobaadkii hore. Mikel Arteta ayaana laga sugayaa inuu qaato go'aan weyn oo ku saabsan Berlin ka noqonaya golhayaha koowaad ee Gunners xilli ciyaareedka cusub. iyadoo aan meesha laga saari karin baa leeyahay bandhiga cajiibka uu sameeyay golhayaha reer Argentina xilli ciyaareedka hore Emiliano Martinez. Dani Ceballos ayaa hadda ahayn ciyaaryahan Arsenal xaaladaas ayaana ka dhigan in khadka dhexe ay ku soo muuqan doonaan Lucas Torreira, Matteo Guendouzi iyo Mohamed Elneny kuwaasoo dhammaantood la xiriirinaya xagaagan inay ka tagi doonaan Arsenal iyagoo khadka dhexe garab ciyaari kara Granit Xhaka. Trent Alexander-Arnold oo aan kooxda Liverpool diyaarinta xilli ciyaareedka cusub aan la safan Austria ayaysan u badnayn inuu ku soo bilaaban doono kulankan caawa. sidaa darteed waxaa macquul ah baa la leeyahay inuu booskaasi garabka midig ee daafaca buuxiyo Nice Williams. Captain Jordan Henderson ayaa si buuxda ugu soo laabtay tababarka kooxda oo isugu diyaarinaysa kulankan caawa Community Shield, laakiin halis laguma kelin doono inuu ku soo bilaabo safka hore. Ryan Browser oo bandhig ilqabad sameeyay ciyaarihii ka dhacay Austria ayaa si la yaab leh ugu soo bilaaban kara safka hore ee xidigaha wajahaya Gunners. daafaca birta ee Virgil van Dijk ayaa la dhibtoonaya dhaawac madaxa oo soo gaaray kulankii Liverpool ay 2-2 la gashay Salzburg ayaa ka soo kabsaday dhaawacaas waxaana uu diyaar u yahay inuu ku soo bilowdo safka hore kulanka caawa. Georgian Wijnaldum mustaqbalkiisa kooxda ayaa mugdi galay iyadoo la soo jeedinaya inuu ka tagi doono Liverpool haddii ay la soo saxiixdaan khadka dhexe Bayern Munich Thiago Alcantara. haddaba xaqiiqooyinka kulankan aad uga baahan tahay. Arsenal iyo Liverpool ayaa ku kulmi doona caawa finaalka Community Shield markooda afraad iyadoo horay u wada ciyaaray sanadihii 1979 1989 iyo 2002. kooxda ka dhisan Marseille ee Liverpool ayaa ku guuleysatay 2 kulan ee horay halka Gunners ay kulanka dambe ee 2002 ay ku adkaatay 1-1. Liverpool iyo Arsenal ayaa ku kulmi doona garoonka Wembley markii ugu horeysay tan iyo Community Shield ay wada ciyaareen 1989 markaas waxay 1-1 ku adkaatay Liverpool kadib goolkaas oo qaybta hore dhaliyay xidigoodii Peter Parsley. Arsenal ayaa guuleysatay 7 kamid ah 9 kulan ee ugu dambeeyay ay ku soo muuqatay Community Shield ay ku jiraan mid kasto kamid ah 3 kulan ee ugu dambeeyay oo xiriir u qaadeen. Arsenal ayaa soo gabagabaysay 10 kulan oo ay gool la'aan ahaayeen marka ay wajahayeen Liverpool tartamada oo dhan waxayna ku garaaceen 2-1 ciyaar ka dhacday Emirates July. Gunners ayaana ujeedku yahay inay gool isxiga gaarto kulamada ay wajahayaan Reds markii ugu horeysay tan iyo bishii September sanadkii 2012 iyadoo lagu darayo kulamada horyaalka. Liverpool ayaa guuleysatay kaliya 1 jeer 7 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay garoonka Wembley dhibaato ay ka qabaan, halka Arsenal ay garoonkaasi ay tahay garoonkeeda labaad waxaana ay ka haysataa 3 barbaro iyo 3 gool dara kooxda Liverpool iyadoo gool ku soo gaari la halkaas tan iyo markii ay 2-1 uga adkaadeen kooxda ay daris wadaag yihiin Everton dhamaadkii FA Cup 2012. Liverpool dhibaato ayaa ka haysata Wembley waxaana tan iyo markaas Liverpool kula soo kulmeen garoonkaas 2 barbaro iyo 2 gool daro. iyadoo ay jiraan kulamada horyaalka Arsenal ayaa khasaaro la kulantay leeyahay kaliya 1 jeer 12 kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay garoonka Wembley waxayna haysataa 9 gool iyo 2 barbaro.
Kuldaradaas ayaana kasoo gaartay Man City finaalkii League Cup ee 2018 markaas oo lagu jajabiyay 3 gool iyo waxba. haddaba labada shax ee kooxaha ayaa noqon kara Arsenal Leno oo golayaha Saliba Luis Trini Cedric. qadka dhexe Arsenal waxa uu noqon karaa Willock Saka William Nketiah halka weerarka loo qaabeynayo xidiga Aubameyang Lacazette ayaa kulankan shaqo galinaya. Liverpool waxa uu noqon karaa golayahooda Alisson daafac wuxuu noqon karaa Williams Gomez Van Dijk Robertson qadka dhexe waa Jonas Fabinho Wijnaldum halka weerarka noqon doono Salah Mane iyo Brewster xidiga Firmino ayaa isna shaki la gelinaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فانتاسيك iyo waliba asxaabta Arsenal Somali fans oo idinkaga tagay